Assalaamu calaykum. Waxaa jira meelo badan oo ay khatar tahay inaad booqato ama tagto. Maanta waxaad daawan doontaan 7 meel oo ay khatar tahay in aad tagto ama booqato. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Babel Creek waa webi ku yaala dalka Mareykanka, Illinois, Chicago. Waxaa qarnigii 19aad loo isticmaali jiray in lagu soo shubo haraadiga xoolaha sida dhiigga iyo weliba dadka dhintay. Intaas wixii ka dambeeyay, waxaa webiga ku batay methane iyo hydrogen, taas oo webiga ka dhigtay mid aad u sumaysan. Waana ay adag tahay inaad ka soo laabato adigoo caafimaad qaba haddii aad booqato. Jasiiradaha Izu ee dalka Japan waa jasiirado ay saameeyeen fulkaanada, waxaana deegaanadaasi aad u saameeyay baaruudda ay dhalisay fulkaanada. Waxaana qasab u ah haddii aad rabto inaad booqato inaad hore u soo qaadato oksijiin si aad u neefsato. Dalool waxa ay ku taallaa gobolka Afar ee dalka Itoobiya. Dadku waxay dhahaan waa magaalo jinni degan yahay. Gobolkan waxa uu caan ku yahay fulkaanada lagu magacaabo Dalool iyo webiyaal badan oo cusbo ah, waxaana ka dhisan dhismooyin ay samaysay cusbada. Ilaa hadda ma jirto xog rasmi ah oo sheegaysa in jin degan yahay, laakiin si aad u badbaado ha aadin ka joog. The Poison Garden waa beer ku taala dalka Ingiriiska. Waxaa laga soo banguuriyay beer kale oo ku taala dalka Talyaaniga oo lagu abuuro dhirta sunta ah, waxaana la aasaasay sanadii 1500. Dhirta beertan ku taal dhammaan waa mid ku dili karta, mana jiro dhir ka mid ah beertan oo aan dhibaato ku geysanin. Waxaana ka mid ah belladonna, tobacco iyo mandrake. Waan ogahay waxa aad ku fikirayso, laakiin ha isku dayin, sababtoo ah waa xiran tahay oo maba la geli karo. Desertinisk waxa ay ku taalaa waddanka Russia. Waxa ay 400 kiiloomitir u jirtaa magaalada Moscow. Waxaa la aasaasay sanadii 1920. Magaaladan waa guriga kiimikada lagu sameeyo hubka uu isticmaalo waddanka Russia. Markii kiimikada laga isticmaalo, waxaa lagu aasay dhulka, taas oo magaaladan ka dhigtay si dabiici ah magaalo aad u sumaysan. Caafimaad ahaan uma wanaagsana in magaaladan lagu noolaado. shacabkeeda waxa uu gaarayaa 250,000 oo qof. Jasiiradan waa jasiirad aad u biyo badan, waxa ay ku taallaa Bormo, waana guriga yaxaasyada ugu khatarta badan. Intaas oo kaliya maahane, waxaa loo aqoonsaday inay yihiin kuwa ugu waaweyn dunida. Intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunyada, magaaladan waxaa saameeyay dagaal 6 maalin socday. Wararka qaarna waxa ay sheegayaan in ciidan aad u fara badan ay nolosha ku cuneen yaxaasyada. Yaxaasyadu waa kuwo xiiso leh markii aan ka daawanayno TV-yada iyo weliba beerta xayawaanada. Magaalada Linfen ee dalka China hadda waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool 4.2 milyan. waxaana loo aqoonsaday inay tahay magaalada ugu wasaqda badan adduunyada. Wasaqdan waxaa sababay qaaca faraha badan oo ay sii deynayaan warshadaha. Magaalada inta badan waa wasaq, waxaana buux dhaafiyay ceeryaamo. Waxaa cadaadis joogto ah mar walba la saaraa dowladda China si ay u nadiifiso magaalada, laakiin yaa nadiifin kara wasaq noocan ah? Haddii aad doonayso ama aad nacday sanbabkaaga, magaaladan gacmo furan ayaa lagugu soo dhaweynayaa. Subscribe si aad u hesho mowduucyo badan oo xiiso leh.